noloshu waxay ay bartay inay wadada u banaynayso oo ay qiimeynayso qofka marka hore asaga nafsadiisa qiimeeya. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى. السلام عليكم وأتكم أصلا دعوة فيديو قال كسر دو برنامجك نولو عصب مقعي يوسف سكين محوي هاي برنامجك نولو عصب. برنامجك نولو عصب وبرنامج أين أوت لقلني inaad nafsadaada dib ugu soo ceshatid, inaad samaysatid nolosha aad mudan tahay inaad ku noolaatid. haddii aad tahay arday hadda waxbarashada ku jira oo doonaya inuu heer sare guul sare ka gaaro waxbarashadiisa, haddaba waxaan ku leeyahay ku soo dhawow nolol cusub. haddii aad tahay hooyo leh caruur balse ku wareertay ku rafaaday ninkeeda oo fahmi weysay, waxaan ku leeyahay ku soo dhawow nolol cusub. haddii aad tahay gabar aan weli guursanin ama wiil aan weli guursanin balse doonaysa inaad dhisatid guri loogu noolaado, jacayl, farxad iyo reerreyn, haddaba waxaan ku leeyahay ku soo dhawow nolol cusub. haddii aad tahay qof waxbarashadiisii jaamacadeed dhameeyay balse hadda noloshu ku cusub tahay oo doonaya in nolosha uu hadda uu bilaabo, in noloshiisa shaqo hadda uu bilaabo balse ku wareersan, waxaan ku leeyahay ku soo dhawow nolol cusub. nolol cusub waa barnaamij qof kasta khuseeya, qof kasta oo doonaya inuu dunidan dhigto raadkiisa, inuu magaciisa waariyo. haddaba maanta waxaynu ku bilaabaynaa casharka koowaad ee aan nolosha ka bartay. tallaabada ugu horeysa ee uu qofkeena ku samaysan karo nolol cusub, ee uu ku bilaabi karo nolol cusub, waxay tahay inuu qiimeeyo marka hore nafsadiisa, inuu kor u qaado nafsadiisa. noloshu waxay i bartay inay qiimeynayso qofka marka hore nafsadiisa qiimeeya. sideed u aragtaa nafsadaada? maxaad u aragtaa mid mudan guusha, mid mudan farxadda, mid mudan jacaylka, mise waxaad u aragtaa mid hooseysa, mid aan mudnayn inay guulaysato, mid aan mudnayn inay kasoo dhex muuqato dadka dhexdooda? may, mid aan mudnayn inay kasoo dhex muuqato adduunka oo dhan. sideed u aragtaa nafsadaada? ogow, ugu dambeystii qofkeena wuxuu noqonayaa sida uu u arko asaga nafsadiisa, sida uu asaga isu arko unbuu noqonayaa. sideed u aragtaa nafsadaada? aad ay muhiim u tahay inaad marka hore nafsadaada kor u qaadid oo aad u qiimeysid. waayo mid ogow, nafsadaada haddii aadan adigu qiimeynin, yaa kaloo kuu qiimeynaya. waxaan kula wadaagayaa 5 tallaabo oo aad ku awoodi kartid in maanta wixii ka dambeeya nafsadaada dib u soo ceshatid, nafsadaada dib u qiimeysid, nafsadaada ka dhigtid mid heer sare ah, mid gaarsiisan meel sare. tallaabada ugu horeysa, kumaan ahay aniga? isweydii su-aashaan marka hore. kumaa tahay? maxay yihiin meelaha aad ku fiican tahay, meelaha aadan ku fiicnayn? maxay yihiin mawhibooyinkaaga? nafsadaada qiimee marka hore. isbaro adiga marka hore, is-ogow adiga marka hore. qofkan haddii uusan garanaynin nafsadiisa siduu ku horumarin karaa? horumarkeena wuxuu ka bilaamayaa inaynu marka hore anaga isbaranno. isbaro si aad u horumartid, isbaro si aad nafsadaada uga dhigtid mid heer sare ah, mid qiimo sare leh.
si aad kor ugu qaadid qiimahaaga waa inaad marka hore la fadhiisataa nafsadaada oo aad fiirisaa wax walboo nafsadaada ku saabsan. maxaan ku fiicanahay, maxaan ku liitaa, maxay yihiin mawhibooyinkayga, maxaan u joogaa halkan, maxaan doonayaa inaan dhigto adduunkan. tallaabada labaad waxay tahay jeclow nafsadaada. haddii aadan adigu jeclaanin nafsadaada, yaa kaloo kuu jeclaanaya? ogow, haddii aad doonaysid inaad heshid jacayl, haddii aad doonaysid inaad heshid farxad, wax walba waxay ka bilowdaan marka hore adiga. marka aad jeclaatid nafsadaada oo adiga jacayl buuxisid, markaas ayaad helaysaa jacayl kale. hataa intaas oo kaliya ma ahan, qofkeena marka uu asaga jacayl ka buuxo ayuu bixin karaa jacayl oo dadka kalena jeclaan karaa. mushkiladu waxay tahay qofkeena ma bixin karo wax uusan haysanin. gabar waxay ku leedahay ninkeyga ima jecla. horta adiga ma jeceshahay nafsadaada? nin wuxuu ku leeyahay ima jecla xaaskeyga. horta adiga ma jeceshahay marka hore nafsadaada? qofkeena si uu jacayl u bixiyo waa inuu marka hore jacayl horta uu ka buuxa asaga. haddii aniga aan nafsadeyda jeclayn, cidna ma jeclaan karo, jacaylna ma bixin karo, waayo ma hayo. haddaba jeclow nafsadaada, ku farax wax walboo tahay, qaab kasta oo alle uu kuu sameeyey ku farax oo ku qanac, waayo waa hadiyad uu alle ku siiyey. wuxuu kaa dhigay qofkaas ka duwan dadka kale oo dhan. wuxuu kuu sameeyey qaabkan aan jirin cid kaloo kula mid ah. haddaba nafsadeydaay, waan ku jeclahay, waana ku jeclaan doonaa, waayo ma haysto nafsad kale oo aan adiga ahayn. haddaba markaa muraayada isku fiirisa subaxii, qofkaan muraayada kaaga muuqanaya siduu kula noqonayaa? ma yahay qof aad ku faraxsan tahay? ma yahay qof aad jeclaan lahayd inaad la kulantid, inaad waqti la soo qaadatid? mise markaa muraayada fiirisid waxaad leedahay wejigaygaan nacay, waxaan nacay sankaygaan, waxaan nacay timahaygaan, kuma faraxsani. ma ku faraxsan tahay shakligaaga iyo qaabkaaga? ma ku faraxsan tahay qofkan ilaahay kaa dhigay? marka muraayada aad fiirisid, markaa aragtid qofkan, ma yahay qof aad aada ugu faraxsan tahay inaad ahaatid? haddii aadan ku faraxsanayn qofkaas kuu muuqda, qofkaas aad u jeedid, qofkaas daawanaysa, haddii aadan ku faraxsanayn, xageed ka helaysaa farxad? haddii aadan qofkaasi jeclayn, xageed ka helaysaa qof ku jecel? markaan soo kaco subaxii, muraayada markaan fiiriyo, waxaan leeyahay ayuub, waan ku jeclahay, waxaa tahay qof agteeda ku weyn, aadayaan kuu jeclahay, shakligaaga waan ka helayaa, qaabkaa u samaysantahay waan jeclahay. nafsadeyda ayaan ku bilaabayaa jaceylka, ayada ayaan jecel ka dharjinayaa si aan dadka kalena u jeclaado. jeclow shakligaaga, jeclow nafsadaada, jeclow mawhibooyinka ilaahay ku siiyey, jeclow qofkan goonida alle uu adiga kaa dhigay ee ka duwan dadka kale oo dhan. tallaabada saddexaad waxay tahay mas-uul ka noqo noloshaada. nolosha aan qofkeena asaga uusan qaadanin qaraaradiisa ma aha nolol uu ku nool yahay. nolosheena dhabta ah waa midda anaga aynu qaadano go-aamadeeda, qaraaradeeda, wax walba anagu aynu gaarno. ma ahan nolol ay noo maamulaan dadka kale, ma ahan nolol ay dadka kale mas-uul nooga yihiin. nafsadaada, ma adiga ayaa mas-uul ka ah mise qof kale ayaa mas-uulkaaga ah? ma waxaad ku xukuntaa mar walba waxay dadku kale ku leeyihiin? ma waxaad ku xukuntaa mar walba waxay dadku kale kaa filanayaan? waxaa u samaysaa mar walba waxay dadku kale si ay kuu jeclaadaan? mise waxaad u samaysaa waayo aniga waan ku qanacsanahay, waayo waxaan ahay qofkaas, mana lagama yaabo inaan u bedelo qof kale dartiisa. haddaba noloshaada mas-uul ka noqo. wax ha u tiirinin wax walboo noloshaada ka mid ah qof kale.
ma garanaysaa calaamadaha lagu garto qofka aan nolosha ku guuleysanin. qofkaasi wax walba wuxuu u raadiyaa cudurdaar, wax walba wuxuu u raadiyaa marmarsiyo, wax walba wuxuu u raadiyaa qof uu tunta ka saaro, qof uu dusha ka saaro. wuxuu ku leeyahay heblaayo ayaa mas-uul ka ah, wuxuu ku leeyahay aabaheyga waalidiinteeda ayaa mas-uul ka ah noloshaan ku noolahay, wuxuu ku leeyahay waxaa mas-uul ka ah dowladda, ayada ayaa sidaan iga dhigtay, dowladeydu hadday waxaa sameyn lahaysaa ma ahaan lahayn. wuxuu u raadiyaa marmarsiyo mar walba guuldarada halkii ay ahayd inuu marmarsiyo u raadiyo guusha. haddaba nafsadaada, noloshaada adiga mas-uul buuxda ka noqo. waxaad arki doontaa inaad ku noolaatay oodna samaysatay nolol cusub. midda afaraad waxay tahay ilaali ahdaaftaada. qofkeena adduunkan nolol ma ahaanayso noloshiisa haddii aan lahayn ahdaaf uu ku seexanayo oo uu ku soo kacayo, qorshe u degsan, qorshahaas oo uu la socdo mar walba. subax kasta markaan soo kaco waxaan fiirinayaa warqadayda igu qorneyd ahdaafteeda nolosha, waxaan la soconayaa ma waxaan ku socdaa sidii ahdaafteedii qaabkii aan rabay, mise waan ka leexday qaabkii aniga aan u dejistay ahdaafteedii. mar walba waxaan la soconayaa ahdaafteeda nolosha, mar walba waan fiirinayaa. ahdaafteena waxay nolosheena u yeelayaan qiimo weyn. qofka marka uu leeyahay ahdaaftaas oo uu la socdo mar walba oo uu ku dadaalayo siduu uga dhabeyn lahaa, wuxuu noqonayaa qof qiimo leh. waayo wuxuu ogyahay inuu hadaf u nool yahay, inuu hadafkaasi uu daba socdo mar walba, inuu qorshahaasi uu u nool yahay, uu ku seexanayo oona ku soo kacayo. haddaba ahdaaftaada ka warhay si aad nafsadaada qiimo ugu samaysid. midda shanaad waxay tahay ficil la imow. ficil la-aan waxba ma samayn karno anaga. haddaba waa inaad ficil bilowdaa. wax walba waanu soo sheegnay hadda, haddii aan la soconin ficil waxay noqonayaan wax aan waxba ka jirin, soo ma ahan. haddaba waa inaad noqotaa qof ficil leh, qof wax walba uu yidhaahdo ka dhabeeya, qof qorshihii u dejista ka dhabeeya oo gaara, qof wixii uu ku fikirayo banaanka keena oo aan bas ku ekaanin oo keliya wax asaga ka guuxaya oo keliya. waan ogahay inay jiraan ahdaaf badan oo gudahaga ka guuxaya, kuwaas oo u baahan inaad ka dhaweysid. haddaba ficil la imow. ficilka wuxuu ku siinayaa qiimo weyn. marka adiga aad wax samaysid waxaad dareemaysaa qiimahaaga nolosha, waxaad dareemaysaa inaad wax u nooshahay, inaad tahay qof qiimo leh oo wax samayn kara. haddaba ficil la imow, markaas noloshaada waxay noqonaysaa nolol qiimo sare leh. ficil la imow oo maanta bilow, dib ha u dhigin wax adiga aad og tahay inay qiimo u leedahay nafsadaada, dadkaaga iyo mustaqbalkaaga. dib ha u dhigin ee bilow maanta. ficil la imow. wax walba oo adiga aad jeceshahay oo aad og tahay waxaas inay muhiim ku yihiin samee, ee dib ha u dhigin. qof dib u dhigay marna ma bilaabayo. bilow hadda oo ficil la imow. markaas noloshaada waxay noqonaysaa nolol qiimo leh, waxay noqonaysaa noloshii aad doonaysay inaad ku noolaatid, waxaadna bilaabaysaa nolol cusub. haddaba intaan waa 5 tallaabo oo aad ku awoodi kartid inaad dib ugu soo ceshatid nafsadaadii, inaad maanta bilowdid wax aynu ugu yeerno nolol cusub. ugu dambaystii iga gaarsii saaxiibadaada iyo qof kastood garanaysid. noloshu waxay wadada u banaysaa oo ay gacmo furan ku soo dhaweysaa qofka marka hore qiimeeya nafsadiisa. ku nolow nolol farxad leh, nolol jacayl leh, nolol cusub. aad ayaad u mahadsan tahay.
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل.